marka differentiga u dhaxeeya marka trade-ka guul dareysta iyo midka guuleysta inta yar u dhaxeyso waa marka laga rabo in aad adiga sameysid tan waay marka si aad u noqotid trader guuleysa marka waxbay fahmaan khasaaradooda waxbay ka fahmaan khasaaruhu waa qayb kamid ah ay fahmaan in gameka aad ku jirta ama suuqa aad ku jirta khasaaraha hadii aad gasho waa mid khasaaro gamekii ku jirta because khasaaraha maanta aad gashay si uusan berito kugu soo laaban waa inaad wax ka fahamtaa si aad taxraac ugu sameeyid marka journal ayaad samaysanaysaa journalkaas wuxuu ku keenayaa inaad qortid khasaarihii aad gashay isla markaana aad taxraac ku samaysid taxraacaas marka wuxuu ku keenayaa inaadan ku laaban markale markii aad trader guulaysto inaad noqoto arabtida waxaa lagaga baahan yahay inaad batansa noqoto qof degan oo aad suuqa ku degdega ama ku boodboodan inaad ku boodbooda aad ilaalisid isla markaana aad ku dadaashid in aadan maaragtay sheega suuqa aadan ku laalaabanin okay discipline waa inaad discipline yeelataa oo discipline uu noqdaa waxyaabaha adiga muhiimka ku ah waa in aad guul inaad gaartay marka aad rabto inaad discipline yeelato oo si discipline u sugtaa suuqa si uu ama u yimaado horta adiga istaraatiijiyadaada saxda ugu yimaado suuqa meesha aad rabto inaad ka gashay trade-ka oo aadan ku boodin in isaga oon dhamaanin kanalka ka soo qaad adiga degdegta discipline la-aan waay taas risk managementiga marka inaad xakamaysidna waa tan keliya aad ku xakamayn karta khasaarahaaga because waa inaad ogaataa waxyaaba aad khasaaraysid iyo waxyaaba aad faa'iido aad helaysid marka hore trade-ka marka aad gelaysid in aad ogaatid horta maxay tahay waxaan khasaaraya maxay la eg tahay faa'iidadiisa maxay la eg tahay taa waa inaad isweydiisaa markaad taa ogaatid kadib ayaad trade geli kartaa akoonkaagana aad badbaadin kartaa marka forex ma ahna inaad mar waliba guulaysato ama suuqan online-ka ma ahan mar kasta inaad guulaysatid khasaaro way imaanaysaa laakiin khasaarahaaga waa inaad ahaataa mid aad wax ka baratid waa inaad barato marka sida loo badbaadiyo akoonka waa kan ugu horeeya qodobka ugu horeeyana waxa weeyaan in aad stop loss la-aan aadan gelin trade-ka inaad discipline aad samaysid oo aad baratay qof discipline aad noqotid risk managementkaagana oo noqdo mid xisaab ku fadhiya si akoonkaaga uusan uguban marka waxaan gordho soo gudbi doonaa haddii la yiraahdo video kale oo aan uga hadli doono beginner strategy taasoo runtii aad muhiim u ah inaad wax badan ka ogaato marka si aan hore ugu sii socono comment ku qor hoos si aad u ogaano waxyaaba aad ka fahamtay iyo sida aad maaragtay aan hore ugu sii dhaqaaqi karno fikirkaaga waa noo muhiim subscribe-kana noogu dadaal insha allah noo saar subscribe haddii ilaa yiraahdo waa mahadsantii saaxiibada